Pro Amplifier LM386 casharkan waa casharkii toddobaad waxa uu la socdaa casharadii hore oon kaga hadlaynay electronicska waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics LM386 Amplifier waxa ay ka taagan tahay xoojin ama kordhin masalanba cod ayaan rabnaa inaan kordhino amplify ayaan leenahay ama xooji ama kordhi chipka aan isticmaali doono waxaa la yidhaahdaa LM386 waxa uuna ku dhisan yahay wax loo yaqaano linear integrated circuit sida hore aan usoo sharxay circuitska laba nooc ayay u kala baxaan digital iyo analog kuwa analoga ah waxaa loo yaqaanaa linear integrated circuits chipkan saddex nooc ayaa loo dhisaa ama packagekiisa loo soo saaraa dib 8 oo ka taagan dual inline package micnaheedu waxay tahay 8 pin ayuu leeyahay oo markaa waxaad ku rakibi kartaa circuitka korkiisa tan kale waxaa la yidhahdaa SOP-8 ama 8 uu ka taagan yahay taana waxaa la small outline package taana pinskeeda waa flat markaa waxaad samayn kartaa circuitka boardka korkiisa ayaad ku alxami kartaa tan u dambaysana waxaa la yidhahdaa TSSOB waxayna tahay think shrink small outline ka ma arki karto pinskiisa sababtoo ah dhinaca kale ayay waxay kaga dhegan yihiin circuit boardka annaga waxaan isticmaali doonaa dib 8 haddaan ka hadalno sida uu u samaysan yahay pinskiisa ee circuitka la yidhahdo LM386 wuxuu leeyahay 8 pin pinka ugu horeeyo haddaan faahfaahino waxaa weeye gain waa meesha aad ka kordhinayso quwadda uu kuu soo saari karo pinka labaad waxaa la yidhahdaa negative input ama wuxuu noqonayaa inverting input kii bedelaya signalka haddaad signalka aad geliso ama sine wave aad geliso sine wavekaas waa uu kala gedinayaa plus inputkana waa non inverting oo waxba ma uu bedelayo oo yacni signalka sidaa u geliso ayuu kuugu soo saaraya 4 waa ground waa meeshii uu ka qaadanaya negativeka powerka 5na waxay noqonaysaa outputka waa meesha uu ka soo saaraya codkii uu ku kordhiyey 6 wuxuu noqonayaa VCC waa meesha aad kaga xiraysay power supplyga 7 wuxuu noqonayaa pinkii bypasskan wax kale ma aha si uusan circuitkaas uusan kugu kordhin noiseka ama waxyaalaha kaga imaan kara banaanka ayaa waxaa la yidhahdaa bypass asna waxa waaye waa filter loogu talagalay inuu nadiifiyo signalka ka imaanaya pin 2 ama pin 3 8na wuxuu la shaqeynayaa pin 1 waa gainka waa meesha ka kordhin lahayd sidaa ujeedaan halkan faahfaahinta pinski supplyga waa VCC waa sidaan usoo sheegnay 6 inputka laba meelaa ka gelin kartaa 2 iyo 3 kaadba rabto powerka uu dissipate gareynayo BD waxay la mid tahay 1250 milliwatt macnaha markii aad ku xirto powerka kuleelka korkiisa ka dhalanayo ayaa la yidhaahdaa bandwidthkana waa frequencyga uu ogolaanayo inuu ku shaqeeyo chipkaas resistanceka uu ogol yahay inaad soo geliso wuxuu noqonayaa RN 50k 50,000 ohms kama badnaan karo gainkana sidaa rabta ayaa ka dhigan kartaano GB waxaad ka dhigan kartaa 20 ilaa 200 ayuu qaadi karaa ama 26 to 46 dB depending sida adiga hadba aad rabto inaad u isticmaasho sidaa la socotaan gainka waxaa lagu calculate gareeyaa voltageka uu out ka soo saaro oo loo qaybiyo voltageka aad geliso inputka ama 2 ama 3 marka tusaale ahaan haddii voltageka uu kuu soo saaray chipkaas uu ahaa 20 volt uu ahaa aadna gelisay signal ahaa 2 volt gainka ama inta uu kordhiyo wuxuu noqonayaa 10 volt marka kaas ayaa la yidhaahdaa gainka haddaan ka hadalno electrical characteristics aan ka hadalno waxaa importantiga annaga noo ah waxay tahay voltage gainka maadaama aan u isticmaalayno amplifier haddii aan ku xirno 10 microfarad capacitor aan ku xirno pin 1 iyo pin 8 haddaan ku xirno pin 1 iyo pin 8 aan ku xirno waxaan kordhin karnaa signalkiisa ilaa 200 ama 46 dB decibel ayay ka taagan tahay sida aad la socotaan qofka bini aadanka codka uu maqli karo ama waxa dhegtiisa ay maqashahay waxaa loo yaqaana audio spectrum bini aadanka waxa uu maqli karaa frequencyga 10 ilaa 20k wixii ka badan annagu ma maqli karno
xayawaanaadka sida eyga oo kale iyo mukulaalaha iyo kale frequencygooda waa naga duwan yahay, ayaga maqalkooda waa naga fiican yahay. laakiin annaga waxaan maqli karnaa ilaa frequencyga 10 ilaa 20 kilohertz ayaan maqli karnaa. waxaa important ah sometimes marka aad dhegeysanayso waxa aad amplify garayso inaad maqli karto waxa la yidhaahdo basska ama waxa codka weyn, oo aad maqli karto haddana codka dhuuban ama codka yar. marka chipkan waxaa loogu talagalay inuu kordhiyo signalka frequencygooda uu gaari karo ilaa intaas 10 ilaa 20. marka saas ayaan rabnaa u isticmaali doonaa. tusaalahan wuxuuna tusayaa waxa aan u baahannahay sidii aan u dhisi lahayn circuitkeena. waxaan u baahannahay capacitors 2 xaba ah oo 100 microfarad ah. waxaan u baahannahay capacitor 0.1 microfarad ah. waxaan kaloo u baahannahay capacitor 1000 microfarad ah. waxaan u baahannahay audio jack, meel aan ka gelin karno codka aan rabno inaan kordhino. waxaan kaloo u baahannahay board aan ku dhisayno circuitkeena. waxaan u baahannahay speaker oo rabno inaan ka dhegaysano codkii. tan u dambaysana waxaan u baahannahay meeshii uu ka qaadan lahaa dabka circuitkaas sida u shaqeeyo. chipkaan isticmaali doonana waa LM386. haddii aan fiirino LM386 specificationkiisa aan fiirino oo aan fiirino tusaalooyinka circuitska aan dhisi karno, sidaa ujeedaan applicationka loo isticmaali karo waa uu badan yahay circuitkan ama chipkan. masalanba amplifierkan ayaad dhisi kartaa oo ka kooban potentiometer oo bedel oo ku volumeka dheereynayo ama gaabinayo. amplifierkan gainkiisa waa 20. marka waxaad isticmaali kartaa capacitorska noocaasa iyo resistorkaas. haddii aad rabto inaad kordhiso gainkiisa oo aad rabto mid cod dheerna, waxaad samayn kartaa circuitkaas ayaad dhisi kartaa oo leh ood ku xirayso pin 1 iyo pin 8 10 microfarad sida hore usoo sheegnay. kaana gainkiisa wuxuu noqonayaa 200 oo noqonaya ama 46 decibel ah. haddaad rabto inaad dhisto gain 50 ah, sidoo kale waxaad dhisi kartaa circuitkaas. marka siyaalo badan ayaa loo isticmaalaa LM386. annaga waxaan dhisaynaa circuit dhib yar oo aad isticmaali karto. circuitka si fiican ayaan u testgareeyay, waana circuitka ugu shaqo fiican haddaad rabto inaad isticmaasho. circuitka waxa uu u baahan yahay meel uu ka qaato signalka ama codka uu ka qaato. annaga aan isticmaali doonaa pin 3 oo ah non inverting, ma uu bedelayo signalkeen siduu ahaa ayuu dhinaca kale usoo saaraya. pin 2 waxaan ku xiraynaa negativeka ama ground. pin 4 sidoo kale waxaan ku xiraynaa groundka. pin 7 waxaan ku xiraynaa capacitor ah 100 microfarad. pin 7na sida hore usoo sheegnay waa bypass ayaa la yidhahda pinkaas. waxa uuna awood noo siinayaa circuitkaas inaysan kaga imaanin wax qayla ah banaanka ama noise. marka filter weeye, wuxuuna sameynayaa wuu ka joojinayaa wax qayla iyo waxsaas oo kale ah. sidoo kale pin 6 waxaan ku xiraynaa power supplyga. waxa also aan ku xiraynaa capacitor 100 microfarad ah. capacitorkaaska sidaasoo kalena waxaa loo yaqaanaa coupling capacitor. wax kalena ma uu qabto, power supplyga imaanaya ayuu nadiifinaya. masalan sometimes power supplyga waxa uu leeyahay waxa la yidhaahdo noiseka ayuu ka ilaalinaya. pin 8 waxaan u dhaafeynaa waxba kuma xirayno, maadaama pin 1 iyo pin 8 loo isticmaalo inaan kordhino gainka sida hore idin tusay. marka ayadana sidoodan u dhaafeynaa, waxba kuma xirayno. pin 5 waxaan ku xiri doonaa capacitor ah 1000 microfarad. sida hore usoo sheegay frequencyga aan rabno inaan maqalno waxaa ku jirto midda basska ama codka waaweyn. marka capacitorkaas iyo capacitorka C2 waxay awood noo siinayaan in ay ogolaadaan frequencyga hadday aan ka hadlay oo dhegteenu ay maqli karto. waxaan kaloo ku xiraynaa capacitorkaas speaker ah. kan hadda anigaan isticmaalayo waa 6 ohms waaye, laakiin adiga waxaa isticmaali kartaa 4 ilaa 8 ohm speaker ah. haddana waxaan dhisaynaa amplifierka. circuit board ayaa la yidhaha sida casharadii aan hore kusoo sheegay. kan waa linekaas waa negative, linekaasna waa positive, sidoo kale linekaas waa negative, kaasna waa positive. marka waxaan sameynayaa si aan u wada isticmaalo lineka negativeka iyo lineka negativeka waa isku xirayaa. waxaan soo qaadanaya chipkaygii
waxaan gelinayaa halkaas. Tan ugu horeyso oo aan sameynayo waxay tahay waxaan ku xirayaa pin 6 meesha power supply uu kaga xirmaayo waaye. pin 6 waxay tegaysaa power supply-ga pluska ah. capacitor ayaa ku xirmaayo oo C4 100 microfarad ah. dhinac wuxuu kaga xirmayaa positive-ka, dhinac kalena ground. marka waxaan soo qaadanayaa capacitorkii, sida ujeedaan waa 100 microfarad. dhinacan wuxuu ka wataa negative. negative-ka wuxuu aadayaa ground-ka. marka waxaan sameynayaa pin 6 ayaan leeyahay. so 1 2 3 4 5 6 pin 6 waaye. waxaan u baahanahay pluska in uu ku xirmo pin 6, dhinac kalena uu kaga xirmo negative-ka. waxaan u baahanahay kale pin 4 iyo pin 2 inaan ku xiro ground-ka. marka waxaan soo qaadanayaa pin 4 waa kan afraad, 1 2 3 4. pin 4 waxaan ku xirayaa ground-ka. pin 2na sidoo kale waxaan ku xirayaa 1 2 waxaan ku xirayaa isagana waxaan ku xirayaa ground-ka. marka pin 2 wuxuu ku xirmay ground, pin 4na wuxuu ku xirmay ground. waxaan u baahnaa oo kale inaan soo qaato capacitorka pin 7 waxaa ku xirmaya capacitor C1 oo 100 microfarad. dhinac pluska 7 aa ku xirmaayo, dhinac kalena ground ayaa ku xirmaya. marka capacitorkii waa kaasa, dhinacaas waa negative-kii. marka waa pin 7. pin 7na waa 1 2 3 4 5 6 7. dhinaca 7ka wuxuu ku xirmayaa plus, dhinaca kalena wuxuu ku xirmayaa ground. waxaa noo soo haray marka waxay tahay capacitorka C1 C2 oo ku xirmaya pin 5 iyo ground. capacitorka C2 wuxuu yahay 0.1 microfarad. marka kana wuxuu noo akhrinayaa 104. 104na waxay ka taagan tahay 0.1 microfarad. marka kan waa ma leh plus iyo minus, male sidaa rabtaa ugu xiri kartaa. sida ma aha electrolytic oo kale, waa caada, waa ceramic waay. marka waxaan ku xireynaa pin 5 to ground. pin 5 waxay noqotay 1 2 3 4. kaas ayay noqotay, wuxuuna ku xirmayaa ground. marka halkaa ayuu galayaa. waxaa noo soo haray capacitorka oo C3 ah oo 1000 microfarad ah. sida ujeedaana capacitorkaas waxa uu akhrinayaa 1000 microfarad. marka pluskiisa wuxuu ku xirmayaa pin 5, dhinaca kalena wuxuu ku xirmayaa speakerka ayuu ku xirmayaa. marka pin 5 halka ayuu ku xirmay, dhinaca kalena waxaan sameynaynaa halka ayaan gelinaynaa, meesha ayaan gelinaynaa si hadhowdi aan aga qaadano codka aga qaadano. marka kaana waa uu xirmay. waxaa noo haray pin 6 inaan ku xirno power supply. marka pin 6 waxaa ku xiran C4 oo hore aan sameynay. marka wuxuu noqonayaa pin 5 pin 6 ayuu noqonayaa. marka 6 waxaan ku xireynaa halka ayuu ku toosan yahay. waxaan ku xireynaa pluska ayaan ku xireynaa. pluskana waxa uu ku toosan yahay halkaas. marka pin 6 ka waa pin 5 pin 6. pin 6 wuxuu ku xirmay pluski, kana waa pluski meeshii aan ka qaadanaynin dabka. haddana waxaan ku xireynaa meeshii codka uu kasoo geli lahaa si aan codkaas u weyneyno maadaama amplifier uu yahay. pin 3 oo ah non inverting ayaan isticmaalaynaa. waxaan ku xireynaa jag. waxaan isticmaalaynaa audio jagga noocan yahay. marka waxaa gelayo meeshii codka ayaa gelayo, dhinacan kalena wuxuu noqonaa negative, dhinacna positive. marka hadda koraan alxami. kan waa stereo waaye, marka wuxuu leeyahay 3 lugood uu leeyahay. adiga un waxaan u baahannahay 2 keliya u baahana maadaama aan stereo aan sameynayno
mono aan sameynayno oo hal signal keliya aan isticmaalayno. Marka waxaan sameynayaa pin 3 waxaa ku xirmaya pluska, pin 3 na waa 1 2 3 waa kaa, marka kaa ayaan gelinayaa. Dhinaca kalena waxaan gelinayaa groundka aan marka kaana sidaa ayuu ku xirmay. waxaa noo haray speakerkii iyo waxaa noo haray power supply-ga. Power supply-ga waxaan isticmaalayaa connectorkaas oo ku xirmaayo battery 9 volt ah. Sidaa la socotaan circuitkan ilaa 15 volt ayaa gelin kartaa. Marka power supply kalena waa isticmaali kartaa, laakiin aniga waxaan isticmaalayaa 9 volt. Marka waxaan sameynayaa positive-ka iyo negative-ka ayaan circuit board-ka aan gelinayaa. Negative-ka waxa uu gelayaa halkaas ayuu gelayaa. Positive-kana waxaan isticmaalayaa midkaas maadaama circuit-ka uu ka qaadanayo pin 6 uu ka qaadanayo power-ka. Sida hore idin tusay pin 6 markaa wuxuu ku xirmayaa pluskaas ayuu ku xirmayaa. Marka kaa waan xirnay. Waxa kaliya oo hadda noo haray waxay tahay speakerka. Speakerka aan isticmaalayo waa 6 ohm waaye. Adiga waa isticmaali kartaa 4 ilaa 8 ohm haddaa haysato. Waxaa important ah speakerku wuxuu leeyahay plus iyo minus ayuu leeyahay sida u jeedaan. Marka important waxa pluska inaan ku xirno dhinaca oo negative-ka oo maaragtay capacitor sida hore idin tusay waxaan ku xirnay positive-ka dhinaciisa waxaan ku xirnay pin 5 ayaan ku xirnay. Dhinaca kale oo capacitor-ka oo negative-kana waa inaan ku xirnaa speaker-ka. Marka sida u jeedaan negative-ka dhinacaas waay. Marka waxaan soo qaadanaynaa positive-ka speaker-ka kaas ayuu gelayaa. Marka halka ayaan gelinaa maadaama line-kaas uu yahay dhinaca capacitor-ka. Tan kalena waxa uu kaga xirmayaa negative-ka ayuu kaga xirmayaa. Marka waxaan sameynaynaa halka ayaan gelin karnaa maadaama labada negative ay isku xiran yihiin, halkaa waan ka qaadan karnaa. Marka circuitkii halkaa ayay ku dhamaatay. Waxa kaliya aan u baahanahay waxay tahay inaan ku xirno dabka aan ku xirno. Marka circuitkii waa diyaar.